su-aasha toddobaad nin la yidhaahdo cabdi hilaylo oo waddanka maraykanka ku nool ayaa wuxuu soo weydiiyey maruu safar u baxay inuu safarka ka soo laabtay xaaskiisii nin la galmoonaayo oo maaragtay zina ku samaynayo ka sinaysanayo uu la kulmay maxaan ku samaynaya ayuu yidhi waxa weeye shareecada islaamku waxay qabtaa in markhaati loo sameeyo haddii meesha diinu ka jirto markhaati afara uu keeno markaa markhaatigaas markay caddeeyaan ninkaas markaasi waxa weeye hadduu nin hadda ka hor guursan uu yahay 100 garbaash lagu dhufto naagtana dhagax lagu dilo hadday hadda ka hor wada guursadeen dhagax lagu wada dilo taas hadii la waayo waxa weeye maaragtay shareecadu u banaymayso ninkaas inuu ninkaanu dilo oo dil oo ku sameeyo laakiin waxa weeye naagti mar haday zaaniyad ay tahay noocaas tahay waxa shareecada ku wanaagsan waajibna hadda asaga ku ahaynin inuu naagtaas oo iska furo oo markaas faaxishadeeda ayadaba uu israacsiyo sidaas oo khayr badan maadaama hadda dalkaas dal xugun sharci oo diineed ka jirin naarintaas ay maaragtay ugu dhowdahay inuu naagtaas oo iska furo zaaniyada oo cirligiisa nasabkiisa xudhimaysa laakiin hadda ninkaas sharci uu ku dilo maaragtay shareecadu ma ogola sharci maxkamad ayaa in la saaro oo xukunkiisa la fuliyo laakiin asaga uma banaana inuu ficil oo sameeyo wabillahi tawfiq alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'du waxaanu ka jawaabaynaa su'aalo dad Soomaaliyeed ay noogu soo direen warfaafinta waaga cusub anigoo Sheekh Maxamuud Abdul Arif marka waxaanu ka bilaabaynaa su'aasha ugu horeysa gabar Soomaaliyeed oo joogta wadanka Greega ayaa waxay soo su'aashay oo magaceeda la yiraahdo Xaliime Maxamed aniga iyo ninkayga waxaan ka ganacsanaa daroogada waxaan ahayn oon ka ganacsanana ma heli karnaa daan iska dhaafnana waanu dhimanaynaa soonkayna muxuu dhimi karaa Xaliime waxa weeye su'aashaas hadii aan shareecada u fiirino daroogadu sideedaba waa xaraam aduguna waad ogtahay waa qof muslim ha tahay waxa la jira la yiraahdo al-daruratu tubihu al-mahdhurat wixii daruura waxay banaysaa xaraamta daroogada hadii dadka joogaahu oo gaaladaahu ay dad gaala ad ka gadaysiin oo daroogadu ayagu markaas aan xaraam ka dhiganayn iyo hadda qof muslim ka gadaysiin labadaba waxa weeye sideedaba waxa weeye shay ilaahay xarimay in laga ganacsado ma banaana ahaatee mid aad sheegaysidoo hadii daroogada wax mooyaane wax kalood ku noolaatiin ama noloshiisa aad ku bedeshin aad heli karina ayna idin gaarsiin karayso inaad u dhimataan waa idin banaan tahay sababtoo waxa weeye aayadan quraanka oo ilaahay suuratul maa'ida ku sheegay oo 10 iyo 1 shay lagu xarimay waxa kamida meeytadi waxa kamida dhiigi doofaarki ayaa kamida hadda qofkii loo dhibaato gelin ilaahay waxa uu dhahay xalaal ayay u tahay marka hadii xaalatu daruura ay la fiiriyo oo wax kaad ku noolaatiin adan weeyhiina waa idin banaan tahay laakiin daruuradaas ay ku banaanahay si kalena kuma banaana marka hadii aad u dhimanaysiin odan loo kala helayna saas ay idin ku banaan tahay laakiin dadka muslimiinta ka iibiya dadka gaalada walba bismillahir rahmaanir rahiim su'aasha labaad oo waaga cusubna uu soo hagaajiyay gabar la yiraahdo Farxiyo Xasan oo meeshay joogta aan noo soo sheegin ayaa ayaduna waxay tiri xaq ku saabsan arrimaha dhaqanka qoyska oo hooso ayna weydiisay taasoo ay ku tiri ninkayga markii aan wada galmoonayno farjigayga ayuu carabka geliyaa oo saas ayuu asagu raaxa ka dhigtaa aniguna waan ka haday arintaas xalaal miya oo soonka wuxuu dhimaysaa iyo noloshayda waxa weeye waxaan ku leenahay Farxiyoy adiga ninka horta waxa weeye naagtu jirkeeda inuu ku raaxaysto waa u banaan tahay dhamaan waxa jamaaca loo diidayaa duurka in looga tago naagta ilaahay waa xarimay asagu hadii arintaas uu jecel yahay oo markaas raaxa ay la tahay meeshaas haduu asagu carabkiisa uu geliyo waxa weeye wax hadda shareecada ay u dhimaysa ma jirto waxa yeelay maxal istimtaaciisi ayaa tahay
laakiin hadday maalin ramadaana tahay haddee waad og tahay soonki waa ku jabayaa oo soonki ma banaano xaaraamna weeye maalin ramadaan hadday tahay hadii la sameeyo. laakiin habeenkii hadday tood habeenkii aad isu wada tegaysaan arrintaasu soonkaagana waxu dhihi mayso. habeen waaba habeen oo jamaaca naagti loogu tegi karaa. midda kaleentood waxay noloshaada kale u dhimaysa ma jirto. haddee arrintaasuna waa arrin bannaan. marka saas ayaanu taasna ugaga jawaabaynaa. wabillahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال السدحاد وهي نوغة تمدي قبردوي كنول إلى فرطون محمد وبدأ سيدنا أرهم قويس كهيك عد ليسا فرطون وحي تري من كي قال وحا وين أيو إلى قبا أركا أدي هبين كاسو إلى قبانه وين كيس أيو مارتيا هبين ذا وكالك أوليه هاي أمن وبدأ أوليه أيو آدا أنينا هبين والبئين ومارتيا إيقو اسمتاعو wada jirnoon wada maaratay wada dhaqan ayaan doonayaa. hadaan waayana waan xanuunsadaa. arrintaasna dhawaatay igu tahay. marka fartuun waxa weeye arrintaasu shaqo xaq wuxuu leeyahay inuu guursado hadii nafaqada oo markaasi uu heli karo oo wixii maaratay uu heli karo mu'anatu nikah waxa la yiraahdo nikah wixii maaratay loo baahan yahay sida marashada iyo kaswada marashada iyo guruga iyo nafaqada waxaas uu heli karo. marka adiga waxa weeye taada markaasi inaad iska daysaa loo baahan yahay. waxa weeye ninka hadduu maaratay haweenkiisa ku maqan yahay oo habeenkooda uu siiyo xaq ayuu leeyahay. adiga waa sabraysaa inaad sabarto ayaa loo baahan yahay oo shariicada islaamka wixii ay u ogolaatay inaad u dayso ayaa loo baahan yahay. arrintaas marka waxaad ku xalinaysaa inaad sabarto oo waxa hawadaadu ay jeceshahay aad ka tagto. maxaa yeelay inal hawa hawaan way hawadu waa dulli. marka hawada raacina shariicada raac. ninka hadii waxa adigu xuquuqad ku leedahay oo kala uu ku siinaayo taas asaga ayaa xaq u leh. marka adiga waxa xaqaaga kaliya fiirso waxa xaqiisaanaha fiirinin. marka insha Allah ta'ala sidaas ayaana jawaabtu noqonaysaa shariicada islaamka. billahi tawfiiq. bismillahir rahmaanir rahiim. su'aasha afraad wiil la yiraahdo xaajiya ayaana soo weydiiyay oo ku soo hagaajiyay warfaafinta waaga cusub. wuxuu leeyahay lacagta gaalada laga qaato ee ceyrta loo yaqaano waxaa laga soo aruuriyaa meelo oo markaasi aan ku haboonayn shariicada islaamka sida doofaarada laga qaado iyo canshuuro iyo waxyaabo noocaasa. lacagtaasi markaasi xalaal ma ii tahay? waxa weeye sideedaba waxa kufaartu ay leeyihiin ayagu sharci dad yaqaano oo diinta islaamka wax ku dhaqan maahan. lacagtana maaratay cayn ahaanteedu وحرام معا لكن وجهك لغو كسبي ايا حرام مر هدي dadku ayagu gaalada ay u tageen ay dhulkaas tageen dadka muaamalada iyo waxooda iyo sharcigooda iyo waxa qaabka ay ku dhaqmayaan ma faragelinayaan wixii ilaahay gaalada uu naga siiyo bani mu'amal ay noo yihiin waana ka qaadanaynaa waana ku banaan tahay marka mana raacaysid meelaha ay ka keenay iyo raacimaysid laakiin adigu waxaad iska ilaalinaysaa shay ceyntiisu markaas ay xaraamta si adigoo doofaar ka cuna oo eeyihii cuna oo khamradii caba ayaa iska ilaalinaysaa laakiin lacag ad qaadatood macnaha ku sii iibsanaysid dad sharci yaqaan ayagu ma ahan meeshay ka keenaane mar hadaa ayagu kasabkooda oo xaraam yahay shariicada islaamka dad yaqaan ma ahan adigu markaas wax fiican oo shariicadu ogoshay ku gado wabillahi tawfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. قف أسقنا مجيء سقرية سؤال اللحاد سؤال شناد عن إلهي ومركزي نويدية إذن شرع الإسلام هو حي كقفته لو وقف وضع الإسلام هو إسقاء أولاد وعي من يدو ذا مركزي إني أبوران أو يسقط درسدان من يدو ذا نلقى قارو مركز وحيابها اللي بعرنتا oo sidaas maartay awlaad ay ku samaystaan awlaad ilaahay ku siiyo waxa weeye ma banaan tahay taas waxa weeye awlaada sidaadaba naagto iyo ninka isu xalaala ninka haduu manidiisa soo qaadeen naagta uu geliyo asagoon hataa u tagin saasna ilmo ay ku abuurmaan xalaal ay haajirta aaladan marka hadda waxyaabahan cusub oo teknolojiyada oo hadda la leeyahay waxba manidi la isu geenaya markaas meel lagu abuuraya hadda sidaas haday manidoodiyo ayagoo isu xalaal la isu geeyay wax uga soo bixi karaan oo arintaas wax suuta galay ay tahay waxa maaratay shariicadu ay ka qabto ma jirto maadaama dad isqaba oo nikah soo qaba yihiin manidoodana isku darankooda markaas shariicada asal ahaan oo maaratay ahay mid xalaala
marka taasna iyadana saas ayaan maartay uga jawaabaynaa billahi tawfiiq. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha lixaad gabar leeyahay Maryam Mustafa Xaaji ayaana weydiisay xagga soonka ku saabsan tahay. gabadhaas marka waxay tiri sanadkii hore xaamilo ayaan haywaana soomi waayay, sanadkan ayaan soomay, marka soonkii hore oo markaasi aan soomi waayay dadaan quudinayaa mase waa sidee? naagta xaamilo hadday tahay amase ilma nuujinayso shareecadu waxay u banaynaysaa hadday soomi weyso oy nafteeda u baqdo inay iska dayso oy markaasi waxa weeye waqtigii ay awood u hesho ay soo qalayso. marka waxa weeye qofka koombada laga bixinaayo amba shooda laga bixinaayo waa qof maartay maral cudur aan ka tagaynoon daawo lahayn uu haayo ama se qof gaboobay. laakiin qofka hadduu qof dhalinyaro yahay asii markii hore cudur uu ka reebay ambay xaamilo ahaday ambay maartay ilma nuujinaysay, hadday nafteeda u cabsatay qalal ayaa laga doonayaa waqti ay markaasi awood inay iska soo qalayso, laakiin waxba quudin mayso haddaysan qof waayeel ahayn ama aysan cudur uusan haynin aynan ka bixi karin oo cudur aan maartay daawo lahayn. marka waxa weeye gabadhaas soonka waxa weeye waa soo qalaynaysaa billahi tawfiiq. bismillaahir rahmaanir rahiim. su'aasha toddobaad nin la yiraahdo Cabdi Hilaylo oo wadanka Mareykanka ku nool ayaa wuxuu soo weydiiyay maruu safar u baxay inuu safarka soo laabtay xaaskiisii nin la galmoonaayo oo maartay zina ku sameynaya zinaysanayo uu la kulmay, waxaan ku sameynaya ayuu yiri. waxa weeye shariicada islaamku waxay qabtaa in markhaati loo sameeyo haddii meesha diinu ka jirto, markhaati afar oo keeno. marka markhaatigaas markay cadeeyaan ninkaas markaasi waxa weeye hadduu nin hadda ka hor guursan uu yahay 100 garbaash lagu dhufto, naagtana dhagax lagu dilo, hadday hadda ka hor wada guursadeen dhagax lagu wada dilo. taas hadii la waayo waxa weeye maartay shariicadu u banaymayso ninkaas inuu ninkaanu dilo oo dil oo ku sameeyo. laakiin waxa weeye naagti mar hadday zaaniyad ay tahay noocaas tahay waxa shariicada ku wanaagsan waajibna hadda asaga ku ahaynin inuu naagtaas oo iska furo oo markaas si faaxishadeed ay ayadaba u israacsiyo, sidaas oo khayr badan maadaama hadda dalkaas dal xugun sharci oo diineed ka jirin. arintaas ay maartay ugu dhowdahay inuu naagtaas oo iska furo zaaniyada oo cirligiisa nasabkiisa xudhimaysa. laakiin hadda ninkaas sharci uu ku dilo maartay shariicadu ma ogola. sharci maxkamad ayaa in la saaro oo xukunkiisa la fuliyo, laakiin asaga uma banaana inuu ficil oo sameeyo. wabillahi tawfiiq. su'aasha sideedaad waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Mursal nin la yiraahdo oo yiri caruurtayda 3 kamid ayaa la yiri inaadan dhalin markii dhiigga laga qaaday waxyaabaha lagu baaro. marka arintaas ma la rumaysan karaa? waxa weeye arintaas waxa weeye arin la rumaysan kara maahan maadaama haweenta ilmaha u dhashay maartay firaashkiisa ay ahaaday. waxa weeye arintaas oo nikaaxi asagoo naagta nikaax u qaba ilmihi ay ku dhasheen wax cadayna oo kaleentoodna aan lahaynin. arintaas waxa weeye arin la rumaysan kara maahan. waxa weeye waxyaabahan wax lagu baarayo waa wax iska dhanni oo mala ah. nikaaxana wax shay haweenta lagu qabo wax shay xaqiiqa weeye. marka xaqiiqo iyo markaasi shay dhanni ah la iskuma maartay la iskuma kala tuuri karo oo lagama dhigi karo xaqiiqadii dhanniga laguma saari karo. marka sidaas daraadeeda arintaas markaasi waxa weeye ma la rumaysan karo. awlaadiisana markaasi ma dhihi kariyo anigu ma dhalin oo maartay arintaas kuma xugmi kariyo. marka waxa dhici karta in dhiigooda iyo waxyaabo badan iskhilaafeen oo Ilaahay abuurisiisa ah. marka taas waxa weeye lama rumaysan karo. billahi tawfiiq. bismillaahir rahmaanir rahiim. nin akhrista oo waaga cusub akhrista su'aasha sagaal isaguna waxa uu dhahay waxaan rabaa in la iga jawaabo haweentayda inay weesada iga jibiso iyo inayna iga jibin. arintaas horta mas'ala khilaafiya waaye. marka haweentaada iyo haweenka kalaba oo ajnabiga isla mid waaye. marka waxa weeye madaahibta culimada islaamku waa ku kala qaybsan yihiin, laakiin anaga Soomaali hadaan oo Shaafiiciyanahay haween hadayna taabato weesada waa naga jibinaysaa ama mid la qaba ha noqoto ama kuwa kale ajnabiga tii mahram oo hadee waalid isu tii ama nikaahin isu nikaax isu kiin banaanayn kaama jibiso.
marka taas waxa weeye shay annaga naga horeeyo aimada islaamka ay ku kala tageen waaye laakiin madhabta shaafiiciyada haweenta weesada waajibisaa qofka ay taabatana waa ka jabaysaa oo laamastumun nisaa aayadaas saxaabadana Abdullah ibn Umar ayaa qaba in markaas lamsiga caadiga ay tahay haddii haweenta ku taabato ka ajnabiga haweentaada ha noqoto ama qeyrkeeda in weesada ay ka jibinayso marka sidaas arrintaasuna ay tahay billahi tawfiiq